السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب عيال آد بلدي سلام يا دمانتين إن عفوا قدم هذا الرجينا يا قصر هذا مقالكينا أقندوني بوركاستي بدنا وحان ندخل شهر قرايا تلوي قصاب سنك وحبرشة قارهان بعض معلمين تا سيدا سوكاله وحبرشة رينك أرضيدا حلقة waxaan rabaa inaan kula sheegareeyo waajibaadka ugu waaweyn ee laga rabo qofka baraha noqonaya. Baranimadu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee qof kasta uusan qaban karin. Waa shaqo u baahan kalsooni, waa shaqo u baahan dhiiranaan, waa shaqo u baahan hal abuur, waa shaqo u baahan maskax furnaan, waa shaqo u baahan in jir ahaan iyo maskaxiyan baad u shaqayso. sidaas darteeda ma aha shaqo qof walba uu kusoo degdegi karo oo uu horay inta ka qabto ama uu ka bilaabo natiijo isla markaasba uu ka helayo. waxaa laga yaabaa si aad u noqoto macallim ardaydu jecel yihiin, si aad u noqoto macallim waxqabadkiisu aad u sarreeyo, si aad u noqoto macallim arday fara badan ama jiil fara badan soo saara inay kuu qaadato 10 sano, inay kuu qaadato 15 sano. marka ma aha shaqo fudud oo qof walba markaasi uu imaanayo oo markaasi natiijo horay uu ka helayo maaha. saas darteeda waxaan kula wadaagayaa waajibaadka ugu muhiimsan ee qofka baraha ah laga rabo, ama qofka raba inuu shaqadan barnaamijka ku soo biiro ee jecel in markaasi uu soo saaro arday fara badan oo markaasi jiil fara badan oo nolosha guulo iyo waxyaabo la taaban karo ka gaara, raba inuu soo saaro waxyaabaha laga doonayo qorshe galinaya insha Allah hadii Ilaahay rabo. waajibka koowaad baraha waxa saaran inuu naftiisa ka shaqeeyo. waxaad ogaataa ardaygu waxa uu noqdaa sida baruhu uu yahay. haddii baruhu uu yahay mid aqoon ahaan diyaarsan, hadduu baruhu uu yahay mid karti ahaan diyaarsan, haddii baruhu uu yahay mid kalsooni ahaan diyaarsan, baruhu sida isaga uu yahay buu ardayga uu soo saarayana uu noqdaa. sababtoo ardaygan markuu soo saarayo waxa uu ku horumarinayaa oo ku dhisayaa inta heerka aqoontiisa ay leeg tahay, inta heerka waayo-aragnimadiisu ay leeg tahay. marka waxaad xasuusnaataa haddii aad bara tahay ama haddii aad bara noqonayso, number 1 waa naftaada. xasuusnow sida adiga aad tahay uu ardayga noqon doona. marka waa in adiga nafsad ahaantaada ka shaqaysaa. nafsad ahaantaada markaan ku leeyahay maxaan kala jeedaa? waxaan kala jeedaa waxay tahay kow dabeecadaada inaad ka shaqaysid, horumarin dabeecadaada ka shaqeey, inaad noqoto macallin dabeecadi macaan, macallin ardayga agtiisa uusan yani ka cabsanaynin, macallin ardayga markuu xusida ku jiro uu ku dareemayo farxad nashaad uu ku dareemayo, macallin marka uu maqan yahayna ardaydu yani ay tabayaan oo leeyahay macallin hebel baa maanta xusida nagu lahaaya xagee buu aaday la soo raadiyo la soo qabto. laakiin haddii agtaada dabeecadaadu ay tahay sida waraabo oo kale oo marka aad soo galaysid ba albaab inta soo galin ba korba leeyahay macallin hebel baa nagu leeyahay ardaydu dhahayaan oo ay kaani jabayaan oo aysan ku dareemaynin yani farxad iyo reer aysan ku dareemaynin ma qurux badna. waa in marka dabeecadaadu noqotaa mid aad u macaan, fasalka marka soo gashid iyo marka maqantaaba waa inay noqotaa mid isku mid waa in noqotaa. waajibka labaad ee saara qofka bara waxa weeyaan dulqaad fara badan baa laga doonayaa. waxaad ogaataa shaqadan baranimadu waa shaqo u baahan dulqaad aad u badan. haddaadan dulqaad lahayn bara fiican ma noqon kartid. haddaad laakiin dulqaadkaada iyo kartidaadu ay tahay mid aad u adag, waxa weeyaan shaqadan bannaanka waa soo baxaysa. saas darteed waxaad ka shaqaysaa mar walba in aad noqoto qof dulqaad badan. ardayda waxyaabo fara badan baa kala kulmi doontaa. shaqada waa shaqo runtii pressure fara badan bay leedahay oo waxa weeye qof bini aadan ah oo adigu kula mid ah baa laga rabaa inaad soo saartid oo aad ka dhigto qof dadkiisa, diintiisa iyo dalkiisa ka shaqaynaya. marka dulqaad fara badan bay u baahan tahay qofka raba inuu qof fiican oo wanaagsan soo saaro. qofka doonaya waa in dulqaad fara badan leeyahay. waajibka saddexaad ee laga doonayo qofka noqonaya bare ama hadda ah baraha waxa weeyaan inaad ardayda wax u bartid sida aad jeceshahay ilmahaada inaad markaasi u barto, inaad u daacad ahaatid cilmigaada iyo aqoontaada waxa laabtaada ku jira aad bannaanka u keentid, in alla inta aad jeclaan lahayd ilmahaada
in ay noqdaan ilmo nolosha meel fiican ka gaara sidaas oo kale ilmaha aad wax barayso daacad ka ahaw aqoontaada waxba ha ka hagradin xogta aad haysid ee aad wax ugu sharxaysid ee aad maskaxdooda ku dhalaalin kartid ee aad maskaxdooda ku bedeli kartid ee aad maskaxdooda ku horumarin karto la shargalay ardayda taasi waxay keentaa marka inuu ardaygu helo macluumaad badan inuu ardaygu helo talooyin badan inuu ardaygu helo motivation badan ama dhiirigelin badan marka wuxuu noqonayaa marka arday maskaxdiisu ay bilan tahay wuxuu noqonayaa arday maskaxdiisu ay horumarsan tahay wuxuu noqonayaa arday xog fara badan haya mar walba oo macalinku uu xog fara badan ardayga la wadaago waa mar walba oo ardayga maskaxdiisu ay ballaaranayso waayo maskaxda maxaa ballaariya informationka weeyaan mar walba maskaxda informationka lagu shubo ay tahay mid wanaagsan oo aad u badan waa mar kastoo waxa ay soo celinayso ay badnaanayso marka mar walba waxaad ka shaqaysaa waxaa weeyaan inaad ardaydaada sida ugu quruxda badan wax ugu sharaxdid inaad mawduuca aad u bayaanisid inaad maskaxda u dhalaalisid macnaha si markaas ayaguna u noqdaan kuwo xog iyo macluumaad iyo cilmi fara badan kaa kororsan waajibka afaraad ee saaran qofka baraha waxaa weeyaan inuu mar walba ku xisaabtamo waqtigiisa waqtiga baraha labaa loo qaybiyaa sidiisa waa waqtiga koowaad waa inta uu shaqada uusan imaanin karo waqtiga uu shaqada imaanayo qofka baraha ahi waa waqtiga koowaad ee la rabo inuu ku xisaabtamo haddii xiisadda waqtigeeda aad kasoo dibdhacdo macallin baa tahay markaa duruufaa ku qabsan kara wadooyinkiibaa caqabad kaa noqon karaan problema ku qabsan kara waxaasoo dhan waa wax yacni cududaad ku imaan kara laakiin inaad ku xisaabtid mar walba oo in alla inta aad dadaali kartid adigu inaad dadaashid oo aad isxilqaantid oo aad xoogga saarto waa waqtiga la rabo inaad ilaalisid waa qodobka koowaad qodobka labaad haddana waqti waxaa jira uu iskuulka joogo qofka baraha ahi marka waqtiga iskuulka aad joogtid waa in aad markaas haddana maalid ka haysaa waqti iskuulka joogo maxaa ka mid eh waxaa ku jiro tusaale oo kale xiisadiyaa ku jiro xiisada 4 daqiiqo baa lagu siiyey ama 30 daqiiqo baa lagu siiyey waqtigii lagu qoondeeyey waqti ka badan haddaad qaadato ka hor ma qurux badna saa darteed waxaa la rabaa marka 4 daqiiqo lagu siiyey xiisada waqtigeeda ku jaangooy si macalinka kaa dambeeya xiisadiisa aadan u isticmaalin sidaasoo kale waxaa dhaca mararka qaar xiisadii 4 daqiiqo aan la gaarin inuu barihii markaasi uu baxo tusaale 10 daqiiqo dhiman ama 15 daqiiqo dhiman inaad haddana sii baxda macnaha marka waqtiga iskuulka aad joogtidna xiisada ku xisaabtan oo waxa weeyaan waqtiga maalid garay oo aad yani ku dadaal inaad markaasi waqtiyadaada dhanka shaqada aad xoog ka saarto waajibka shanaad ee qofka baraha ah laga rabo waxaa weeyaan waxbarashada carruurta ha ku cuslaynin macallimiinay qodobkan aad baan u adkeynaya ardaydeena waxbarashadii waa ay naceen kuwii iskuulaadkii waa naceen kuwii jaamacadihii waa naceen sababtu waa maxay sababtu waa laba qodob waa midda koowaad ardaydii waxbarashadii waa lagu cadaadiyey waa lagu dhibay macnaha culays fara badan baa lagu saaray macallin baa ardayga raacaya macallin baa arday yani erayga kulkul ku dhahaya ardaygii waxbarashadii raaxaba kuma dareemayo inuu xaafadda joogo ayuu ardaygu wuxuu ka jecel yahay inuu iskuulka joogo inuu xaafadda joogo ayuu ardaygu wuxuu ka jecel yahay inuu jaamacadda joogo waayo wuxuu og yahay haddii uu iskuulka imaado ardaygu inuu xaafadda joogo ayuu ka jecel yahay inuu goobta waxbarashada imaado waa caqabad runtii aad u weyn sababtu maxaa keenay sababtu waa ardaygu goobta waxbarashada nasiixo kuma dareemayo hadduu goobta waxbarasho imaado mid la dilo mid la ciqaabo mid la kululeeyo mid yani la booshgareeyo bay wada noqon ayaga saas darteeda markuu xiisado markii dhammaan baxayo ardaygu ma dareemayo yani wanaag ma dareemayo waajibka qofka baraha noqonaya saaran waxaa weeyaan ardayga marka aad wax baraysid waxbarashada culays ha uga dhigin ardayga waxbarasho u fududay ardayga waxbarashada ha ku dareemo nafis ha ku dareemo
ha ku dareemo waxbarashadu inay tahay wax aad u macaan. Ha u arko qofka ardayga ahi markuu wax baranayo in waxbarashadu ay markaasi baraare iyo horumar ay naftiisa u horseedayso. laakiin haddii waxbarashadii uu ardaygu kala kulmaayo cadaadis, uu kala kulmaayo dhibaato, uu kala kulmaayo hanjabaad, uu kala kulmaayo niyajab, markuu xaafadda joogana uu helayo space iyo nafs uu helayo, ardaygaasi waxbarashadu culays u fahmaya. marka ka shaqeey mar walba in aadan noqon bare waxbarashada ku dhiba ardayga. arday hanacsiin weliga waxbarashada, ka shaqeey ardayga sidii aad waxbarasho ku jeclaysiin lahayd. sababaha ugu waaweyn ee ardayda waxbarashada jeclaysiisan waxaa ka mid ah habka wax loo baro. haddii habka wax loo baro uu yahay mid aad u wanaagsan, mid aad looga taxadaray, mid laga soo fakaray, ardayga waxbarashada wuu jeclaadaa, wuu ku hamiyaa, farxad iyo rareen fara badan buu ka qaadaa, wuuna jeclaadaa, weligiisna kama tago. waajibka lixaad ee saaran qofka baraha waxa weeyaan habdhaqankaada wanaaji. qofka aad waxbarayso qof bani aadan, saas darteeda kula macaamil habdhaqanka ugu wanaagsan, maadaama haddana uu yahay qof adiga lagaa rabo inaad soo saartid, qof adiga lagaa rabo inaad ka shaqaysid, qof adiga lagaa rabo inaad waxa weeyaan wax bartid. habdhaqanka ugu fiican ee qof bani aadan lagula macaamilo ha ka arag. ballamahaada oofi, dhiirigelin agtaada ha ka helo, niyajab agtaada uusan ka helin, farxad iyo rare agtaada kula waxa weeyaan ha kala kulmo. habdhaqankaada aad wanaaji. habeen ban anigoo wadda socda baan inan yar oo suuqa u socda baan waddadii isku arag. ilmaha markii badanaa waan la sheekaystaayo waa iska jeclahay. marka waxaan ku iri waxbarashadii iyo waxyaabahaas bay ka waraystay. wuxuu ii sheegay inuu dugsi quraan dhigto laakiin uusan iskuul dhiganin, laakiin uu dhigan jiray. da ahaan 8 sano meelaas buu ardaygaa jiray. waxaan ku dhahay waxbarashada maxaad uga hartay? wuxuu yidhi iskuulka waa laga jiray, laakiin macallin dartiis baan uga dhacay buu yidhi iskuulka dhan. macallin iyo maamul dartiis baan iskuulka dhan u nacay buu yidhi, laakiin waxbarashada waa laga jiray. waxaan ku dhahay maxaa dhacay oo aad macallimiinta iyo maamulka la kulantay? wuxuu yidhi waxaa jiray arday mar walba been iga sheegi jiray, been fara badan bay iga sheegayaan buu yidhi. macallin bay igu dacweynayaan, maamul igu dacweynayaan. macallimiintii maamulkii buu yidhi si ii dilayaba nafti ka qaadeen. marka ugu dambeyn buu waxaan go-aan ku gaaray buu yidhi iskuulkii dhan baan nacay, waa iskaga tagay buu yidhi. marka habdhaqanka ardayga loola macaamilayo wuxuu go'aamiyaa sida ardayga ay noqonayo. wuxuu go'aamiyaa in ardayga waxbarashada uu jeclaanayo, ama wuxuu go'aamiyaa in ardayga waxbarashada uu nacayo. saas darteeda marka aad bara tahay ama aad rabto inaad bara noqoto, habdhaqankaada aad u wanaaji. waajibka toddobaad ee qofka baraha ah laga rabo waxaa weeyaan la shaqeey maamulkaada aad goobta ka wada shaqaynaysaa. waxaad ogaataa maamulka aad la shaqaynaysid maamul oo keliya kuma aha, waa mararka qaar waa saaxiibkaada. adiguna sidaas oo kale waxaad tahay saaxiibkiisa. maamulka iyo adigiba waxa ay saaran waajibka ah ardaydan inaad wax bartaan. isagu shaqo uu leeyahay, waajibaad gaar uu leeyahay, adiguna waajibaad gaara leedahay. saas darteeda waajibkiisa asagoo ka soo baxo, adna waajibkaa ka soo baxay. waxaa imaan kara mararka qaar waajibaad aad ka midaysan tihiin oo si wada jira laga rabo inaad ka wada shaqaysaan. saas darteeda waxaad noqotaa marka inaad markaasi waajibka maamulka aad kala shaqaysid waxyaabaha muhiimka ah ee aad si wada jira u wada qaban kartaan. waayo shaqooyinka qaar maamulku ma qaban karo macallin la'aantiis, shaqooyinka qaar macallinku ma qaban karo maamul la'aantiis. marka waxaad noqotaan dad wada jir ah. maamulka marba la shaqeey wixii ardayda markaasi ku saabsan oo doorkaada ah markaasi qaado. haddii shaqadu aysan shaqadaada ahayn oo doorka aysan lahayn, ma aha inaad faraqashata, maaha. waajibkaada barnimadaada ku ekow. wixii maamulkaaga soo baahdo haddii aad awoodidne fuli, haddii aad awoodinne si wanaagsan oo cududaar ah oo macquul ah ula wadaag. laakiin mar walba waxaad noqotaa mid maamulka la shaqeeya. waajibka sideedaad ee qofka baraha ah laga doonayo waxaa weeyaan waa inaad mar walba ardaydaada wax kusoo kordhisaa. ha noqonin qof buugga keliya wax ka dhiga, ha noqonin.
mararka qaar hal abuur la imow, mararka qaar fikrado ardayga anfaca la imow, mararka qaar talooyin ardayga yani naftiisa uu ku horumarin karo la imow. يعني xiisada aysan noqonin xiisad la dhigo buug keliya macnaha. waajibka sagaalaad ee laga rabo qofka baraa waxa weeyaan ha noqonin qof mar walba ciqaab wax ku xallin. ciqaabtu nabadna way kaa kaxaysaa, colaadna waxba kaagama tarto. marka arday aad isqabataan hadal wax ku xallin. sokeeyaha waxaa la yidhahdaa hadal baa wax lagu xaliyaa sidiisaba. marka ardayda waa sokeeye, waa dib baa lagu keeno baa wax barti baa laga raba. marka madaxa u istaagino si xun ha u qaraacin. marka inta alla intaad ciqaabta aad ka fogaan kartid ka fogow. ciqaabta ku ahaato processka ugu dambeeya, tallaabada ugu dambeysa ku ahaato ciqaabta macnaha. marka arday la hadal ciqaabta kugu dambeysa mar walba inaad carabka ku xariiso ku dadaal. ugu dambeyn saaxiibayaal, waajibka u dambeysa ee qofka baraha laga rabo waxa weeyaan guud ahaan inaad soo saarto arday wax qabad leh, arday dantiisa garanayo, arday danta dalkiisa garanayo, arday danta diintiisa garanayo. mar walba waxaad ku dadaashaa ardayga lagu keeno inaad isbeddel aad ku samayn kartid, inaad horumar fiican ku samayn kartid. waajibaadka ugu waaweyn ay ka mid tahay inuu baruhu ardayga loo keeno uu isbeddel fiican ku sameeyo oo dabeecadii lagu yaqaanay iyo sida uu fikirayo wax fara badan ka bedelo. muuqaalka ayaan kuula sheegaraynayaa waxyaabaha lagu qiimeeyo macallimka inuu wax bedelay ama is wax bedelay. arday baad wax bedeshay, arday baa ku dadaashay, bal ardaygii horta inuu isbedelay iyo in kale adiga maxaad ku dareemaysaa? حاجة ممكن إمكانيات اللي جرب وقفها معلم كأنه شقديسة وكبيقابيو وكبيسكريو. marka insha Allah qadixan kula shirgaray doona qaabka aad u xisaabin lahayd shaqooyinkaada ama waajibaadka. halka dala soo gaartay ku rajeenaya inaad wax fiican qorso doonto insha Allah ku soo bir kanaalka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.